بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكلان وعنا ونكسر ميل والبعض جوتان هل كان يوم مقالبة هي سيانة كسر هذا برنامج قادة وهدو بعيد ما أن كل مدون محمد عبد عافي وأهرني رسول مالي دو كسر جد أمام القبلات كسر مالي دي جبلان سلام كان حاقر بجوك أهنا أكتيفيست عم بقف أدود حقوق ذا آذنها saddexdii bilood ugu dambeysayna ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya si uu u soo indhay ama uu soo koorgala xaaladii ugu dambeysay ee Soomaalida iyo Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubbaland Axmed 1997 ayaa markii ugu dambeysay ay ahayd ee uu gaaro ama uu ka soo taga maamulka Jubbaland iminka ayuu dib ugu laabtay hadaba waxaan ka wareysan doonaa xaaladda guud ee dhalinyarada maamulka wadaaga iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyay intii dalka uu ka maqnaa وسليه waa lagu soo kordhiyay ama nusqaan ayaa ka jira iyo guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee deegaanka iyo maamul wadaaga maxamed cabdi ku soo dhaw marka hore muuqaal baahiyaha iyo barnaamijkan gaarka hadii akhbaar naga siisa xaaladda guud ee dalka in waxaan maleynaa in fogaya wadankii kugu dambeysay iminka ayaa dib ugu laabatay bal hadii aad marka hore intaan arrimaha Jubbaland iyo deegaan aan u dul istaagin aad faahfaahin guud naga siisa xaaladda guud ee Soomaaliya iyo Soomaalida aad baa mahadsantahay walaal horta Kismaayo iyo Xamar baa igu horeysay oo tagay sanadkan gudihiisa laakiin 2015 wixii ka dambeeyay iyo 16 in ka soo 18 aan tagin waxaan tagay gobolka Gado Kismaayo Xamar waxay ugu dambeysay muddo hore oo kiibaad u dhowr 20 midna 20 sano ku dhawaada midna dhowr 20 sano runtii intii markii wadanka ugu dambeysay waxay ahayd xilligii ay ka jireen maamuladii ahaa gaarsiiska ama wixii la dhihi jiray kumeel gaarka intii wadanka u galay dawlad dhexe ma aanan tagin Xamar iyo Kismaayo hadda ay ugu horeysay haddii aan tagay 15 iyo 16 17 Gado runtii isbedelka ka muuqda iyo sida ay u dhisan tahay waxaan ku qiyaasayay inta aan ka maqlay idaacadaha iyo aqoontii hore aan u lahaa gobolka inta aan ka tagin laakiin haddeer sanadkan aan ku jirno gudihiisa waxa ay soo gashay inaan tago Kismaayo oo xarunta laga arrimiyo Jubbaland iyo Muqdisho oo ah caasimadda dalka marka runtii waxaan ku soo laabtay Gado oon imid adigu bil iyo 7 cisho u qaadatay Xamar iyo Kismaayo intii aan joogay 2 bilood iyo usbuuc kalena waxaan joogay Gado oo aan magaalooyin dhowr aan ka tagay sida Baardheer Galbeed Buurdhuubo iyo Badaxaaw iyo tuulooyin hoos yimaada intaba ilaa miyiga si aanan marka hore u eegi jirin dalka ama aanan u fiirin jirin oo u fiirinahay runtii aragtidii aan ka soo qaatay Xamar iyo Kismaayo baa waxay ugu kordhiyeen in siyaabo badan aan u fakari jirin waag horena u fakaro waxyaabo badan oo aan fiirin jirin aan fiiriyo runtii in aan isku dayo bal intii karaankayga ah in aan muujiyo wixii horumar ah oo dadku ay haystaan wixii dibadhac ah oo dadka haysta doorka maqan oo annagu aan leenahay anagu koow aan ka ahay dadka wadanka ka tagay hadday yimaadaan maxay ku kordhin karaan maxay ma garanaysaa keeni karaan oo faa'iido ah dabcan wax dhimaanna waa iska jirtaa iyada ruuxeeda marka adigu waxyaabahaasi markay ay dhaceen waxyaabo badan baa ii soo baxay oo aad u tiro badan waa mahadsantahay haddii aan halkaas kaga soo gudubno xaaladda guud ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ama Soomaalida bal aan imaan imankana maamulka Jubbaland dawladda sano ee uu ka arriminay Axmed Madoobe bal haddii aad iyana aad bal u dad istaagta maamulada sano ee ku meel gaarka ahayd xukuumadii maamulkiisii dhexe iyo kan hadda 2019 intii u dhaxaysay bal waxyaabihii aad isleedahay bal waa ay gaartay Jubbaland maxaa kamid ah dawladda sano ee xukunka Jubbaland horta waxaan dhihi karaa waxaan horta wadanka ku noolaa iyadoo qabaayil ka taliyaan oo ma garanaysaa ilaha dhaqaalaha la isku diriro sida meelaha maaragtay wax soo saar kale webiyada iyo dhulka beeraleyda wax ka soo baxaan ama dekadaha ay raboorada meelaha wax ka dhoofaan oo kale xuduudaha iyadoo dadku ay isku haystaan oo dawladnimadii iyo wixii dadku ay waag hore ku mashquul jireen meesha ka maqan yihiin baan wadanka ka tagay maamulkan intii u dhismayeen waan ka maqnaa dalka maana joogin runtii dibaddan ka joogay waxaan is dhihi karaa horta maamulka intii u dhismay waxna waa laga faa'iiday wax badan oo qaban lahaa oo ka gaabiyeen waa jiraan boqolkiiba waxaan dhihi karaa
rajada laga qabay wixii uu qaban karay numberka uu dhaqaaqay iyo waxaan is dhihi karaa numberka uu lumiyo waxaa tiro badan numberka uu lumiyo uusan gaarin haddii marka aan tusaalooyinka ugu soo qaado dadku in ay ayagoo kala qabaa'ilo ah hal maamul ay yeeshaan ayagoo dhowr gobol oo kala duwan ah waagi hore wax ay dadku ku qanacsanaan jireen ma ahayn hadda waxaad moodaa maskax ahaan dadki in arrintaas ayada ka dhacday waxyaabaha aan is dhihi karo maamulka looga dayan karaa bay ka mid tahay haykalka magaca la sameeyey oo la yidhahdo Jubbaland oo kale iyaduna waa wax dadku ay aqbaleen baan dhihi karaa sida oo kale in aysan jirin in dadku ay is ugaarsanayaan oo caawito nin jooga baar dheer uusan ka baqaynin ama tagtaa dhowley ama afmadow mid afmadow iyo bu'aalo jooga uusan ka baqaynin ama tagtaa maxaan ku rahdaa doolow iyo maxaan ku rahdaa luuq way iska jirtaa taas oo ayadana waxaad moodaa in isbedel dhankaasa laga gaaray waxyaabaha kale oo ayadana isbedelka ah oo aan arkay waxaa ka mid ah in ay jirto wasaaradda arrimo gudo oo magacawda maamulada taasina warqadda ay ku magacawdo qof kasta oo maamula uusan dhaafi karin midna xilligii laga bedelay uusan waxba ku darsan karin midna xilli ma garanaysaa aan waxba loo ogoleyn uusan wax ilaa ka qaanjisi waagi hore dhici jirtay waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaan dhihi karaa maamulku wuu soo kordhiyey laakiin numberka horumarinta maxaan ku rahdaa bulshada daadejinta maamulka oo kale dadka oo la dhiso maxaan ku rahdaaye niyadooda oo laga dhaadhiciyo waxaan ayaga inay leeyihiin shaqo abuurna loo sameeya dhalinyarada waxyaabahaas oo dhan meesha ka maqnaayeen markaan Kismaayo tagay waxyaabahan ku arkay kale waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ku-xigeenka kusii xigeenka ra-iisul baarlamaanka 75 xildhibaan saddexda governor oo gobolada jubbooyinka uu ku jiro kiigada waliba maamulka jubbada dhexe oo naba gacanta lagu haynin gidigood haday ahaan lahayd min municipality ila meesha u sareyso wada magacaaban waxay wada joogan gidigood Kismaayo marka Kismaayo waxay noqotay overcrowded waxay dumisay magaalooyinka u dhawaa sida Doobley afmadow badhaadhay oo ahay dadku in meeshooda lagu deegaameeyo waxna loogu qabto way seegaan waxaad moodaa qof walba inuu isleeyahay Kismaayo yaan laga buuxinin taasi marka waxay sababtay in deegaanada jubbooyinka oo waliba ka qiimo badnaa Kismaayo inay noqdaan dhul aan indhaha qabanaynin jubbada dhexna waxay noqotay in la iska ilaawo oo de ama aan lagu raadinin xal nabadeed lagu raadinin ama sidii lagu raadinayo kuwan kale aan lagu raadinin oo aan awood lagu raadinin sidoo kale gado inta kaga tirsan maamulka haday aan lahayd wasiiro xildhibaano iyo governorkii gidigood waxay wada joogaan meesha reer Kismaayo marka laga reebo hal wasaarad ah Baagarbahare martimid oo xafiis ka furatay shaqaalana geysay oo hayd wasaaradda dastuurka iyo maxaan ku radaa cadaaladda hal wasaarad oo kale oo ka shaqeysa oo xafiis kale ma jirto Garbahare oo intay waxyaabaha xataa la yaabo waxaa ka mid ahaa in xataa governorka gobolka uusan ku lahayn xoghayn iyo xafiis shaqeeyo asagoo u leeyahay xitaa ama la geeyo wixii dadka cabashadooda tabashadooda rabitaankooda ama xataa wixii uu gobolka u gudbin lahaa ama uu qaadi lahaa xataa meel uu kusoo gudbiyay aysan jirinin waxyaabahaasi waxay ka mid ahayn waxyaabaha hoos u dhaca oo isdhihi karo maamulku uu ku hormari karay sida hadda uu yahay way maxaa sababay in marka laga soo tago jubbada dhexe oo hadda gacanta dawladda ka maqan gaar ahaan Jubbaland ka maqan ama dawladda guud Soomaaliya ka maqan in maamuladii kale jubbadii hoose iyo gado maamulkoodii uu Kismaayo saldhigtay isagoo aan ka warhaynin horumarka deegaankiisa ama gobolkiisa ka socday ay Kismaayo dhamaantood kuwada sugnaadaan intaas maxaa sabab u ahayd isleedahay niyahow horta jirta maamul xumo kala jirta niyahow horta waxaa dad badan ayaa waxa ay eedeeyeen in Axmed uu jecel yahay maamulkii uu sida gacanta ku haysto oo halka Kismaayo loo waday barinta waxa ka dhigay niyahow horta maadaama aysan jirin baaritaan rasmi ah oo Soomaalidu hadda ay ku mideysan tahay oo la sameeyay oo ku aadan sababaha maamuladeenu always ay hal meel ugu nastaan haddana midda shakhsiyadeed anigu aan leeyahay waxaan is dhihi karaa dawladda Soomaaliya waxyaabaha burburiyay oo dumiyay waxa kamid ahaa dhexe tii Maxamed Siyaad Barre in dadku ay u arkahayeen xukuumadda madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre ka yahay in asaga iyo qoys ahaan familkiisa hoose ay faa'iido dalka dhan ku qabaan sida daraadeed la yiraahdo wixii gacmaha ku haya dhulka lagu daadiyo si loogu kala ordo waxaan dhaxalnay dhowr iyo 20 sano oo dagaal ah waxaan isir marka maamul kasta oo dhisma sidii uu maamulkaas u shaqeyn jiray buu isleeyahay u shaqeysid
oo ahayd in la helo hal madaxweyne awood leh iyo dadka hoos shaqeeya saasna wax ku hagaagaan arrintaas haddana in way marka si kale loo fiiriyo waxay noqotay wax caabuq oo Soomaalidu wixii ay diideen oo dawladnimada u diideen haddana inaysan mar kale aqbali karin laakiin aniga personal waxaan is iri waxa is dhex galay noloshii iyo siyaasadda taasa marka waxa sabab u noqotay in arrintan ay dhacdo oo qof kasta oo siyaasi ah ama xildhibaan ha noqdo ama governor ha noqdo ama madaxweyne maamul gobol ha noqdo ama xitaa mid dawladda sare waxa isku xirmay muuqaalka shakhsiyadiisa iyo noloshiisa isbedelka ee siyaasadda mar walba ku sameynayso marka Kismaayo waa xarunta airportkeedu uu shaqeeyo airport caalami leedahay dekadiina way leedahay waana caasimadda saddexaad ee dalka hay-adihii iyo waxa la wixii gargaar ah oo soo marayay ayaday imaanayaan waxaad moodaa marka dhammaan institutionski inay soo raacayaan isha dhaqaalaha halkaasna waxaad moodaa inay ka helayaan wixii ayaga nolol u baahnayeen inay halkaas marka ku hakadeen oo joogaan baad moodaa marka taasaan u maleeyay anigu inay sabab tahay wax nolosha ku saabsan iyo dhibicda dhaqaalaha meesha ka soo dhacaysay taasaa sababtay baan isleeyahay in maamulkii uusan daagdegin oo meesha uusan dhaafin okay waa aan ka soo tagnaa dhanka kale wax qabadka maamulada iyo xitaa maamulka Jubbaland marka laga eego Gedo iyo Jubbada Hoose adeegyada asaasiga ah dhanka caafimaadka waxbarashada biyaha kulliyada Gedo ayaa tagto oo aan in muddo soo joogtay bal dad badan ayaa waxay u arkaan maamulka in marka laga tago Jubbaland waa adeegyada asaasiga haba u badnaadeen Gedo ay hooseeyaan sida caafimaadka waxbarashada wadooyinka xitaa wadooyinka amnigooda waxa xaqiiqo ah aan ognahay in Gedo aysan Jubbada Hoose u gudbin Jubbada Dhexe warkeeda iska daawiyada gacanta ka maqan oo maamul u gudbi kara gobol gudbi kara ay adag tahay bal arrintaasi amniga midaasi taan u guda galin okay dhanka bal hadii aad noo sharaxda adeegyada asaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka arrimaha asaasiga horta waxbarashada Kismaayo horta waan tagay waxbarashada Kismaayo ka jirta boqolkiiba waxaan dhihi karaa 90 waxay ku tirsanayd gacantadeed wax private ah ahaayeen ma ahayn wax ama maamul dawlad dhexe ama mid Jubbaland ay garab siiyaan shakhsiyaad ayagu isxilqaamay oo ku talagalay in bulshadana ay badbaadiyaan ubadkoodana ay badbaadiyaan maadaama wadanka ay ku sugan yihiin ayagana ay nolol ahaan ka samaystaan ba horta asal u ah in waxbarashada ay badbaado Kismaayo saas ay ahayd baar dheere waxaa ka jirta iyadana laba iskuul oo primary iyo leh iyo high school labadaba waxa gacanta ku haya ayaguna sidaas oo kale NGO non profit organization la yiraahdo iyo mid kale oo la yiraahdo Markabley waxaana sal u ah dadka deegaanka ah oo ayaguna intaas oo kale ka damqan mudana gacanta ku soo hayeen wali ma aysan dhicin faragelin ay ku sameeyaan maamulka Jubbaland ama fan ay u keenaan oo sare u qaadayaan waxbarashadii ama ay isku dayayaan inay u sameeyaan jaamacado ama collegeyo ka hirgala gobolka Garbaharey baan tagay ayadana sidoo kale aan barar ku hakado wax yar barar marka caafimaad isbitaal fiican baa loo dhisay aad iyo aad u heer sareeya walow uusan haysanin daryeel caafimaad oo buuxo dhameystiran dhakhaatiir ku aadan shaqadii qaban lahayn badanaa ma jiraan hay-ad si rasmi ah oo hawlgasho oo agabka caafimaadka u dhamaystirtana ma ay jirto taas waxaan is dhihi karaa xoogaa gaabis xagga caafimaadka waa jiraa biyaha oo kale oo xarun aad iyo aad muhiim u ah maxaan ku raahdaa arrin u ah tiirka nolosha u ah wadadhexaad 3 shirkadood baa ka jirta oo dad ay leeyihiin khaas ah ayaguna waxay la daalaa dhacayaan inay dadka biyaha gaarsiiyaan oo laga badbaado in biyaha gacanta lagu cabi jiray ama dameerka lagu dhaamin jiray laakiin absolutely waxaana jirin haba yaraatee biyo nadiif oo magaalada laga cabo taasina xagga biyaha aad bay uga liidataa magaalada way leedahay kaliya waxaan u baahanahay in maxaan ku raahdaa lagu bixiyo kharash iyo lacag lagu caawiyo sida aan ka arkay Kismaayo oo kale shirkad waxa ka jirta inaad caafi oo biyaha u sameynayso magaalada inkastoo aysan lacagta la siiyay wax qabadkeeda uusan isu miisaanayn $560,000 oo fan ah bay heshay walina magaalada Kismaayo ma aysan dhameystirin maxaan ku raahdaa wana lacag waxaan dhihi karaa in waxna ku bilaabi kareen wax badan ay ka faa'iidi kareen gobolkan ma uusan helin gabi ahaan Garbaharey oo kale runtii waxay leedahay ilaa 4 macahad laba diini ah mid caafimaad ah iyo mid technical ah oo magaranaysa xirfadaha lagu barto si loo shaqeysto iskuulo aad u sareeya oo waliba mar walba imtixaanka dawladda dhexe ardadooda ay 10 ku sareeyay soo galaan waxa gacanta ku haya shakhsiyaad ilaa iyo waxay ku hayaan dhowr iyo 10 sanadood
dad magaalada looga tagay oo dadkii waxna qaxeen waxna qurbaha aadeen bay waxay go'aansadeen maadaama dhulka ay degan yihiin inay badbaadiyaan ubadkooda waxayna noqotay arrin badbaado noqotay runtii Garbaharey waxbarashada ka jirta meel aan ku arkay ma ay jirto markii caasimadda laga reebo magaalo yar oo dadkeedu soo u kooban yahay waxbarashada saa u danaynaysa ma aanan arag waxbarashada aad bay u sareysaa biyaha oo kale waxaa jira dad u dhashay magaalada oo dib lacag ugu celiyay sidaad ogtahay dayrtii biyaha badneed 98 biyaha Garbaharey oo ahayd biyo aad u kharaaro aduu biyo kharaaro la cabi karo dayrtaas ceelal badan bay qarrabtay ceerka magaalada markuu uu halaabay wuxuu noqday maxaan ku raadahay beer sidii baa lagu cabahaya dadku waa ku dhibanaayeen marka niman isxil qaamay baa waxay geeyeen lacag kharash adigu $500,000 dhow bay geliyeen markii aan wareystay oo aan meesha booqday oo aan soo arkay runtii kharashka ka galay iyo lacagta ka gashay bil walba iyo wax soo saarka ay ka helaan isma leh xataa dhaqaalaha ka soo gala magaalada ma dabooli karo baahida loo baahan yahay in xataa loo helo shaqaalaha iyo shidaalka warshada inay ku shaqeyso biyaha sifaysa biyaha aad bay u sareysaa biyaha mooyo saxada caadiga oo biyaha laga isticmaalo dhinac walba haddii cabitaan noqon lahayd haddii noqon lahayd in loo isticmaalo sida caadiga ama dhaqaalka ama qabayska whatever sida ahaan jirtay marka dadka wareysa magaaladan waxay ii sheegeen cudurro ay ka mid ahaan jireen kaliyaha oo dadka badan dhagax lagu sheego iyo lowyaha oo xanuuna inay hadda ka raysteen oo dadka waayeelka oo aad arrimahaas oo la daala dhici jiray inta shirkaddan oo timid caafimaad badan dareemeen sidoo kale waxaan tagay magaalada Balaxaawo aad bay u dhisantay oo waxaan dhihi karaa magaaladaas waxay sameysay isbedel aad ballaaran hal cilada haysato oo magaalada xagga waxbarashada arrimahan hadda aan ka hadlaynaa waxaa daris la magaalada Mandera dhowr iyo 10 kun oo cunug baa soo walba waxay ka gudubtaa xuduudka u soo gudubta Mandera iskuulada marka Mandera ku yaala Balaxaawo waxay u tahay hab ay ku xisaabtamaan oo dhaqaalaha ay ka sameeyaan waxa kaliya marka magaaladan ay ku badbaadi karta maaha shacabkan inuu wax bedeli karo in institution dawli ah ama mid maamul goboleed ama mid dawladeed tu yimaado iskuulla awood leh meeshan laga furo la isku dayo shacabkan in la hakiyo wadankooda la jeclaysiiyo way waxa lagu badbaadin karo arrinta iyada hayna waa doorka maamulada ama mid dawlad dhexe ama mid dawlad goboleed ay lahaayeen waxaan dhihi karaa 100% way gaban arrinta iyada ah ma aqaan kulay ma dadkaan wali gudbinin ma ummadii baa wali ku qanacsan maxaan ku raahdaa qaabka ay ku noolaayeen ma in wadanka dawladda uu helay wali aysan ka warhaynin waxaad muddo marka dadka reer Jubbaland cabashadooda gudi inay kismaayo saaran tahay ama ha joogo Raaskambooni ama ha joogo Doolow in ay dadku inta dhaafaan kismaayo dawladda dhexe ugu jirsadaan problemkooda haday biyo tahay haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay aad bay u muhiim ahayd arrintaasna kama jirto carrada sidoo kale waxaan tagay Buurdhubo arrin aad u argagax leh baan ku soo arkay 5 sano oo la soo dhaafay isbitaalka Buurdhubo ma shaqaynaynin laba bari ka hor waxaa ku geeriyootay Buurdhubo gabadhii 77aad markii aan tagay 6 iyo 70 gabdhood baa waxay u dhinteen runtii arrimo la xiriira caafimaadka arrin argagax leh oo aad u xanuun badan oo runtii markasta oo xasuusto qalbigayga bedesho way arrintaas gabdho badan oo aan isla soo kornay baan ku arkay diiwaanka buugga caafimaadka runtii dadka deegaanka degan runtaas maaha arrin ay wax ka qaban karaan waa arrin u baahan ama inay dawladda xaw istaagtaa maamul u istaago markaan dadka wareysta waxay leeyihiin magaaladan tuulo ahaan bay u diiwaan karsantahay Jubbaland hay'adaha jira gobolka caawiya runtii degmanimadeedii waxaa hortaagan maamulka Jubbaland xataa haddii aan hay'adaha wax ka raadsan lahayn kama helno dawladda dhexe in ay wax kala jiraan dadka wali ma aaminsana haddii aad tiraahdo cabasha idin banaan oo caban kartaan waxay ku leeyihiin waxaan anagu ka baqaynaa haddii aan cabanno maamulka Jubbaland ee dhibaatada nagu hayay in ay u noqoto hiil arrinta iyada ah marka waxay ku leeyihiin dhib kasta oo nahaysay waxaan nooga daran nimanka dhibka nagu hayay oo maamulka ahaa in haddana aan garab sii siino marka dad badan baa waxay u arkayaan cabashada xaq ay u lahaayeen meelihii aadi lahaayeen inay u arkayaan inay dad hiil u tahay waxaa jirta maamaha aan baxdo Soomaalidu ay yiraahdaan cadowgiisa oo saaxiibka marka nimankan cadowga nagu yihiin aan marka aan cid naga qaban lahayd aan saaxiib oo la noqon ma rabno kaniyo arrimaha waxbarashada dadku way la kacaa ku faayaan meel kasta oo aan tagay meeshaasna hadda way fiicanta waxbarashadeeda markii uu waxa sabab ka dhiga caafimaadka Buurdhubo waxay go'doon ahayd
ilaa iyo intii ay ka baxeen al-shabaab magaalooyinka ay godoomiyeen bay ka mid ahayd sida Dinsoor iyo gobolada Boqol oo kale Xudur iyo Waajid oo kale iyo magaalo population badanna ma ahan oo isku filan oo iskaafin karta oo awoodi karta inay diyaarada isticmaasho si dirqi ah bay wax u sameeyeen airport asaga ahna weegi mar ama laba mar baa laga yaabaa in magaalada dadkeedu ay isticmaalaan haddii aysan jirin arrin asaasi ah oo ay maartay ku khasban yihiin in ay maxaan ku iraaday ay u baahdaan ama qof caafimaad ay kaga dhoofinayaan ama gruubdada oo baxaya ama wafti imaanaya oo kale marka maadaama magaalada populationkeeduna uu yar yahay go'doon ay ahayd aysan helin daryeel dawladeed iyo mid maamul goboleed taasaa waxay sababtay inay hagaasto oo dhibkaas uu noqdo dhib magaranaysaa lahara magaaladii iyo dadkii oo 91 sida dawladda dhexe uga burburtay aan wali aamininba in wadanka iyo dawladdu ka jirto daryeel u fidin karta ama magaranaysaa cabashadooda dhageysan karta inta badan waqtiga wuxuu iga lumay in aan isla fahano in tabashada iyo waxa ay qabaan in ay gudbiyaan aysan ceeb ku ahayn ayaga aysan daliil ku ahayn naftooda garabna aysan u ahayn maamulka ayaga maxaan ku raadaay ay ka cabanayaan oo leeyihiin Jubbaland maxaan ku kamaana helin daryeelkii aan ka mudnay waa mahadsantahay haddii aan halkaas kaga soo gudubno arrinta adeega asaasiga bal dhanka wax shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland ee deegaano qaar ayaa laga diirinaya dhalinyarada haddii ay xaaladeeda u gashay saako waxay la hadlaysay gabar reer Bordeaux ah oo duruuf ee reerkooda wax ku soo bareen kana damqatay dhibaatooyinka gabdhaha haysta waxay u tiri 4 sano oo waxaan bartay caafimaad ah oo mulisaan bartay waxaan ugu talagalay inaan degmadeeda ugu shaqeeyo dadkayga way soo laabatay way timid waxay tiri waxaan u baahanahay nolol waxaan u baahanahay shaqo waxaan u baahanahay dadkayga inaan daaweeyo arday waxaan ahay fresh oo hadda ka soo baxay jaamacadii ma haysto wax daryeel haba yaraatee qaabkii ay ku raadin lahayd iyo dadkii la raadin lahaana ma haysto mushkilada marka dhalinyarada haysto waxaa ka mid ah dhowr arrimood baa isu raacay sida caadiga ah Afrika dadka waxbaa la baraa markii wax la baro qof walba nasiibkiisa waxaa jirta qaab shaqooyinka loo raadiyo ama shaqooyinka loo abuuro absolutely annaga Soomaali waliba adduunka waa ka sii liidana dhinacayada marka dhalinyarada wax baratay kii beeraha bartay wuxuu ka baqayaa haddii uu beeraha ka shaqeeyo oo yiraahdo fawban waxaan ka soo qaadanayaa dhaqaale beeraleyda si aan u caawiyo duurka waxaa jooga nimanka dhalinyarada ah waxay leeyihiin waxay leeyihiin ma keeni kartid meeshan asagana waa nin gacantiisu maran tahay oo nin zero wax ka bilaabi kara ma ah maamuladii magaalooyinka haystayna kuwa u soo jeeda inay meelihii ilaahay dhaqaalaha oo beeraha oo kale ee awoodda saaraan si shacabka ay beeraha uga shaqeystaan ma aha taas waxay ka mid tahay qaybaha maxaan ku radaa wadanku wuxuu ku tiirsan yahay inta badan waa xoolaha iyo beeraha marka maadaama labadiiba ay duurka jiraan oo aanan ahmiyadda aan la saarin ciidan amni aan la saarin waxay sababaysaa in dhalinyarada ay ka noqdaan bahashi xagga caafimaadka wasaaradda caafimaadka maadaama aysan buush gareynaynin in degmooyinkii wax laga furo faculty caafimaadka ardayda soo barata ayaguna saas u dhiban yihiin guddigood waxaad arkaysaa inay xamar iyo Kismaayo iyo magaalooyinka waaweyn ay wareegayaan si qof walba uu isaga ilaawo inuu ummad iyo bulsho u badbaadiyo laakiin uu ka fakaro asaga naftiisa inuu wax taro dhalinyarada marka waxaan fiiriyay guddigood waxay barteen mostly maxaad baratay qof marka wuxuu ku leeyahay IR waa just international relationship waana wax maanta Soomaaliya ka shaqeeya in la isku xiro maamul iyo dawlad in la isku xiro dawlad iyo hay'ad in hay'ad iyo la isku xiro UN macna wax noocaas oo kale ah waxyaabahaasna loogama baahida waxa looga baxaa shaqooyinka ama hal abuur kale ama gacanta laga qabto sida beeraha sida maxaan ku radaa xoolaha oo kale sida kalluunka magaran sida dhismaha oo kale in la sameeyo waxyaabaha ayaga ahna waxay ku leeyihiin dadka gidi waxay la xiriiraan amniga bay la xiriiraan oo labada maamul ma ay ogola in xaggan aad ka shaqeysto either with us or against us middle buu ku leeyahay inta badan inkastoo aad mid xogaha qolyahan maamulada ah in dadku ay ku haystaan xogaha madax salaaxa laakiin qolyahan maxaan ku radaa duurka jooga waxaad moodaa ayagu in ay shuruucda restricted ay tahay waxa ayagu ay soo rogaan ilaa wada hadal lagala galo ay ogolaadaan aysan ogoleen haba yaraatee wax wada xaajooda inaysan ka gelin wixii maxaan ku radaa iyaga laga dadku ay qabsan lahaayeen okay maxamed waa mahadsan tahay waxaan hagaag daawadayaal waxaad si toos ah u daawanaysaa barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayna xaaladda maamulka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaana marti ku ah
محمد عبدي عافي oo dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana qolba joog si dhowna ula socday xaaladda Jubaland isla markaana kormeer 3 bilood ah ay gudaha dalka Soomaaliya محمد haddii aad mar kale u soo laabato arrimaha la xiriira amniga ee Jubaland saaxil ku soo sheegayba xaaladaha socodka gobolada ay aad u badan hatta Jubaland hoose hatta Jubaland dhexe markaas ka dhaafnay xaaladda ilowna oo in gacantii ay ka wada qayo igado bal socodka deegaanada iyo degmooyinka haddii aad faahfaahinada siisa xeerka ay gaarsiisan tahay amnimada socodka iyo in dad profile ay soo socdaan bal arrimahaasi niyo arrimaha isu socodka horta amni darro way marka la yiraahdo waxay noqonaysaa waa erey guud oo ballaaran laakiin ma aha sida ayada ah baan dhihi karaa si ka duwan baan u dhihi karaa oo ah dad ama la dhaco ama la dilo ama la boobo kama jiraan carrada oo maxaan ku rahaa shacab ah muhiimaddu waxay tahay maamuladii baa kala saaran oo ah haddii aad tahay groupkan area joogi kartaa dad groupka tan area joogi kartaa shacabku wuxuu access u leeyahay inuu meeshu rabo u aadi karo aslan uusan xiriir lahayn labada qolo midna qoladaanuna inay ka shaqeysanayn kuwana la leedahay link aad la leedahay ama maamul ahaan aad la shaqeyso kuwaanuna inaan ka shaqeysanayn kuwan aad link la leedahay waa la shaqeyso taasi horta xoogaa xagga amniga waa laga roon yahay hal ciladaha jirta oo ah wadooyinka tusaale haddaad Kismaayo tagto oo kale wadada laamiga magaalada Kismaayo ka baxdo gooweyn aad markaad shir kale soo gaarto way xiran tahay madaxtooyadii baa ku taala meeshaas waa inaad wadada ka degto oo maxaan ku rahaa xabta xageeda aado oo soo wareegto oo dhagax jabisiisa laamiga kaga soo dhacdo reason-kuna waxa weeyaan sida uu bilowday gawaaradan isqarxinaysa waxaad moodaa in amnigii lagu sameeyay waxde zaid ah oo too much ah oo magaranaysa aan dhihi karo jidgooyo taas waa tii magaalooyinka dhexdooda jidgooyinka jira ka mid ah xagga duurka markaan aado qolyahan duurka jooga ayaguna waxaynan ogolayn in dhisme lagu sameeyo wadooyinka sababtoo ah waxay ka baqayaan haddii wadooyinka la sahlo oo la fududeeyo in access loo helo ayagii halkaas waxaa ka jira mushkilad ayadana okay labada maamul marka haddii qolo walba go'aan ay gaartay waxaan moodaa shacabka Soomaaliyeed oo dhulka iska lahaa in ay marti u yihiin labada maamul oo aysan kala garan karin midka ayaga dantooda ay ku jirto ama aysan qaadan karin door ah inay yiraahdaan haddiina nagala hadli karin ama idna naga riixi karin qolyahan aad sahaysaan danteena kuma jirto sanadaan ku noolaano maxaa xal ah marka shacabkeeda waxaad moodaa inta aad loo kala qaybiyay inay burbursan yihiin oo aysan awoodi karin hal cod ah oo ama maamul kula xisaabtamaan ama ay qolyahan duurka jooga kula xisaabtamaan inaysan jirin marka waxaan isleeyahay shacabka waxay u baahan yihiin mas'uuliyadda ay lahaayeen 100% in dayacan tahay inay meesha ku jirto ayna muhiim tahay in ay ogaadaan in maxaan ku radaa mas'uuliyadda saaran oo koobaad ay tahay iyaga in aayaha mustaqbalkooda iyo carruurtooda in aysan ahayn in ay madax laabtaan oo qof muddo jiri kara ama sanada ama 2 sano ama 3 sano ah oo aadan ku khasbanayn in asaga aad daba taagnaato cimrigaaguna de xilliga Ilaahay qoray mar walba una dhaafaynin baad moodaa in looga dhigay marti horumarkii iyo isdhexgalka bulshada marka arrimahaas wadooyinka iyo soo socodkan taasaan ku salayn karaa waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ama qaybihii dhexe ee barnaamijka haddii aad bal faahfaahin naga siiso arrinta la xiriirta dad badan ayaa waxaa iyagana ay Jubaland ku eedeeyeen arrinta la xiriirta xorriyadda saxaafadda amaba xorriyadda qowlka caburin inay jirto ama ha noqoto maamulkii qayb ka mid ah in la caburiyo amaba in la caburiyo shacabkii qayb ka mid ah bal intaad ku soo sugnayd Jubaland muddadii 3 bilood ee guud ahaan Soomaaliya joogtay 15 shay arrinta xorriyadda qowlka sida loo isticmaala iyo siyaabaha ay bulshada baahiyahooda gaarka soo gudbiyaan maxaad ka dhigtaa niyahow inkastoo aanan dee anigu takhasuskayga saxaafadda iyo sharciga midna uusan ahayn haddana Soomaalida waxaan moodaa qofku hadduu bidix istaago inuuna bidix ka dhaqaaqin midig hadduu istaagna midig ka dhaqaaqin aniga meel walba oo aan tago waxyaabahan arko iyo wixii ila macquul ah wax walbana dee inaad sheegto muhiim ah haddii hadda qarax u dhaco 100 qof ay dhimato inaad tala 100 qof meeshan ku dhimatay macna ma sameynayso wax laga baaqsan karo oo ummadana niyad jab ku ridi kara inaad sheegto ayadana macna ma sameynayso waxaan isleeyahay marka dad
dadkaasoo kale waxyaabahaas u fahmay in ay saxaafadu tahay xorriyadeedana waxay dhib u geysanayaan dad badan wax wanaagsan sheegi lahaa ayaga caqabad ku ah. qolyo aan isleeyahay awoodda gacantooda way ku jirtaa oo ayaguna ka cararhayo ama xumihiina iyo foolxumadiina banaanka lasoo dhiga oo wax badan oo idin qarsoomi lahaa la baahiyaa oo ay ka mid yihiin waliba xitaa kuwa duurka ku jira ayaguna waxay awoodda saareen in saxaafadii ayna sii rabto inaan u shaqayn. tusaale anigu inkastoo aan wariyahayn haddana waxaan isticmaalayay maxaan ku rahdaa aaladda internetka iyo magaranaysa social media intii aan kari karay meel kastoo aan joogay. haddana waxaan isku dayayay inaan ka baaqsado in aan qolo si taargada aan u weeraro oo magaranaysa aan xuduudaheeda dhaafo. waxaana ka tira badan marka inaad qolo dhaliisho oo kala dul dhacdo waxaa ka tira badan baahida asaasiga ah oo dadku ay u baahan yihiin oo u baahan in la tabiyo la hormariyo baa waxay ka tira badan tahay in ama lagu mashquulo maamulka Jubbaland ama lagu mashquulo kan dowladda federaalka ama lagu mashquulo kuwa duurka jira. haddaan dadki waxbarasho haysan oosan caafimaad haysan oona shaqooyin haysan oona wadooyin haysan oo magaranaysaa niyad dhis iyo dadkii in maaragtay maskaxdoodii sare loo soo qaado inay bini aadam yihiin oo ka maarmaan inay baryeystaan magaranaysaa meesha taalo waxba muhiim hadda ma sheegaysa halkaas ciidan baa joogay halkaas waxbaa ku jira iyo hebel baa magaranaysaa hebel jaga ka qaaday iyo hebel baa hebel caburiyay iyo inaysan macno samaynayn. marka waxaan is dhihi karaa maamulkiina waxaa la sheegay in dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaalida dhexdeeda kulaha saameyn oo caburin ku sameeyay haddii dhanka saxaafadda xitaa aanan ahayn oo hama noqon shacabka oo dhanka xorriyadda qowlka lagaga wanaagsan yahay maamulada kale ee dalka ka jira ay kaga wanaagsan yihiin gaar ahaan Kismaayo waxa u badnaatay oo dadka la caburiyo oo qofku uusan wixii dhaliil sheegi karin. Boordow ayaa kamid ah hadda aad sheegtay oo dadka aysan baahidooda aysan sheegin karin. marka maamulka bal dhanka xorriyadda in loo wanaagsan yahay Boordow hadda su'aal kale Boordow iyo baar dheer iyo Garbaharey iyo Balax macaamiisha Balaxawo iyo marka aan tagay runtii waxyaabaha hadda aniga Balaxawo markaan tagay kala tusaale aad u muhiimka waxaa kamid ah waxbarashada iyo arrimaha xuduudka wariyihii ka hadla umalayn maayo in wax loo qabsan lahaa. Kismaayo oo kale waxyaabaha aadka muhiimka oo meesha yaalla waxaa kamid ah in magaaladan ay laqday maamulku intiisii kale muhiimna ay tahay in maamulka la dedejiyo magaalada inta laga saaro qolo walba gurigeedii ay tagaan ku shaqeeyaan. wariyihii arrintaas ka hadlan umalayn maayo hadda in barashar la saari lahaa. Boordow anaaba tagay isbitaalka baa la ii furay maxaan ku rahdaa waa la igala hadlay. Garbaharey oo kale saldhigga taliyihii booliska ay raacay saldhigga baa la ii furay videoyaan ka duubay ninka u sarreeya booliska ee hadda la bedelay maalin dhaweytay hebel America uu tagay Garbaharey saldhigga uu arkay oo cabashadiisa uu qortay oo noodgareeyay markii xamar uu tagana telefoonka uu ku dhageystay taliyihii saldhigga buu ii sheegay. marka dadku ma diidana tabashadooda in la gudbiyo laakiin meesha ay ka bilaabi lahaayeen baad moodaa professional inaysan aqoon. marka qofka Soomaaliga hadduu rabo in wax dhaliilo wuxuu rabo inuu ka bilaabo madaxweynaha hadduu rabo in uu magaranaysaa rabo inuu wax amaanana wuxuu ka bilaabaa naftiisa. marka haddii madaxweynihii naftaada aan loo dhaxaynin ayadana waa mushkilad meesha ku jirta. waxyaaba marka aan is leeyahay saxaafadda ruuxeeda looguma helin karo waana la caburinaya ay leeyihiin baa taas ka mid ah. haddii la heli lahaa qof asagoon xitaa saxaafad ahaan usoo gudbinin xogaha jira inta soo aruuriya oo muhiimka ah oo asaasi oo dadkuna ay jeclaysanayaan ku raaxaysanayaan jecel yihiin inay wax ka qabtaan la samayn lahaa. waxaan is leeyahay saxaafadan waxay leedahay meel ay ku practice garayso madaxduna waxay ogaan lahayd dadku inuusan isku mid ahayn. okay waa mahadsantahay intaan soo galin doorka qurbi joogta iyo arrimaha kale ee barnaamijka ku soo gabagabeyn lahayn intii hadda isjiidkan siyaasadeed 2019 gaar ahaan xilligii doorashada Axmed Madoobe lagu gubi jiray diyaarad baa ka degeliyay diyaarad baa la joojiyay kan way ku soo waxaan ognahay in inta badan oo kala dalkan Kenya gaar ahaan xilliga qofka ay ku soo yihiin maamulka Jubbaland dad badan ayaa waxa ay leeyihiin in xaaladan siyaasadeed la galay qaxootigaasi waxa ay waayeen adeegyo badan oo asaasi oo ay heli lahaayeen sida caafimaadka gargaar dibadda ugu imaan lahaa ama gargaar xitaa Muqdisho ka soo gaari lahaa kadib markii dowladda ay xakisay isjiidka siyaasadeed ee intii doorashada ka dhexeeyay Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya saameynta leeg ay ku yeeshay bulshada. niyahow markii idaacadaha laga hadlayo mise markii gudaha la galo dhabta ah waxaan aaminsanahay markii dhabta laga hadlayo mas'uuliyadda waxa iska leh dowladda dhexe ayada waddanka dowladka ah wasaaradda beeraha wax qabadka beeraha u sameynayso waxay u sameynaysaa bulshada degan doolow
ama luuq ama buurdho baar dheere ama maxaan ku irahdaa laga bilaabo baarsan guni inta ka shishaysa wixii ay wasaaradda beeruhu qabanayso beeraha diiwaan gashan baa la yaqaanaa dadka iskale baa la yaqaanaa waxa lagu caawin karo oo ay leeyihiin baa la yaqaanaa marka uma malaynayo haddii ay wasaaradda doorkeeda qaadan lahayd meel uu maamul goboleed ka soo galo uu ka istaajin karo af markii laga reebo ma ay jirto sida oo kale wasaaradda difaaca ama gaashaandhigga oo kale marka laga reebo in inta generaal loo magacaabay Kismaayo la geeyay naga laaba la yiri wax de function oo rasmi ah oo wasaaraddu ay ku muujinayso authority-geeda ma aysan samaynin goboladan hadda gado oo kale 90% ciidamada ayaa gacanta ku haya wax daryeel ku haysaana ma laha haba yaraatee waxaan dhihi karaa waa I can say like maybe 20% ka badna daryeelka haystaan caafimaad ma leh daawo ma leh gawaari ma leh hal xafiis oo logistic ma leh dalacaad ma leh ma garanaysaa hataa janaka u sareeyo uma malaynahay warkooda intuu qadaxtan u gaashaandhigga gaarsiiyo arano barashar baa ka saaran xaggaas mise asagii baanan lahayn kuwa la tagaas ma kala garan karo laakiin wasaaradda gaashaandhigga shaqadeedii waa dayacan tahay caafimaadka waa tan kala hadlay degmad dhan baa dadka saas u dhamaanayaan oo kamid ah maxaan ku raadayay dhulka dadka Soomaalida ku noolaayeen beledweyne fatahaad baa ka dhacday 100 qof kuma dhiman 77 gabdhood meel ay ku dhimatay within maxaan ku raadayay less than 2 year in dhagaha laga furaysto waxaad garan kartaa macnaha inay tahay doorka dawladda ilaahad oo gabi ahaan bay ka saxatay ayadana inay ku ciqaaban Jubbaland ayaguna doorkooda ay fuliyaan haddaan usoo gudbo wasaaradda tacliinta iyo waxbarashada gobolada Jubbaland markii ay imtixaanada qaadayaan oo kale waxay dawladdu moontahay inay agaasimayaal ama guddi waxbarasho oo wasaaradda ka socda loo soo diro gobolada si ardada ay la fadhiistaan ciyaalkuna ay u ogaadaan haddii imtixaankooda iyo waxbarashadooda si wataan mustaqbalka inay gaari doonaan heerkan oo kale wasaaradii waxbarashada idan kaalinteeda waa maqan tahay umana maraynay maamulka Jubbaland inuu diidi lahaa wafti kormeerayo waxbarashada oo imaanayo wafti caafimaad oo imaanayo sidoo kale ama ma garanaysa xarumaha daryeelka u fidinayo ma umalaynayo inay joojin lahaayeen wasaaradda beeraha waxay awoodi kartaa in goboladan hadda haddii aan Jubbooyinka xitaa la wada gaari karin Kismaayo wixii ka dhow dekada lagu soo dejin kara cagaf iyo agab ay ku beerooda ku fashaan haddii gado ay adag tahay in dhulka la soo mariyo waxaa la awoodi karaa inta boosaas laga soo dejiyo oo galdagab lagu soo xareeyo oo dhulka la soo mariyo oo goday la soo mariyo Itoobiya Soomaaliya hadda isku fiican yihiin oo dool laga soo bixiyo in gargaarka loogu talagalay halkaas laga qaybiyo gobolka inta ay gaari kartay ilaa luuq dawladdu sideedaba ayadaa waxay gabtay doorkeeda baan dhihi karaa maalin dhaweyd waad ogeed gobolkan daawo oo inta badan Jubbaland la xiriiray Axmed Wado ku xirnaa waa tii qalalaasay siyaasadeed ee ka dhacday degmada luuq ciidamo ka goosay balaxa waa tagay 160 ah waxay u yeereen dawladda federaalka waxay dhahan na soo gaarto ha noo timaado gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ilaa hadda cid tumid ma la doobirin waa la dhaaf hatta agaasimo looma dirin saraakiil looma dirin daryeel looma dirin marka waxaan dhihi karaa dawladda federaalka ah ayada kaalinteeda gabtay ma dhihi karo qof aan waxba la joogin oo wuxuu hayana aan la arag oo un just testimonial magac isaga haysta ma dhihi karo waa qof mas'uuliyad ay qaban karto marka waxaan u maleynayaa aan dhanka inay shaqada u istaagmaan amsana arinta la xiriirta xoreynta sidoo kale waxaan rabaa inaan raaciyo raalahow wasaaradda amniga oo kale in ku dhow 2,000 oo askari baa gobolkan laga askariyay la tababaray muddo 2 sano ka badanna ay ilaa hadda joogaan wax daryeel ma aysan helin agab looma keenin gawaari looma keenin waxba looma keenin saldhigyada gobolka gada ku yaala min baar dheere ilaa doolow hal saldhig ah oo xataa bug wax lagu qoro u yaala ma jiro labada qof oo soo dacweysa af baa laga wada hadlaa waa shaqo dawladdu u taala way dhex wasaaradda amniga iskala shaqadaas marka waxaan dhihi karaa dawladda wasaaradaheeda kala duwan baa waxay gafeen shaqooyinka iyaga u yaalay borderka oo kale customka balaxaw wasaaradda arrimaha dibadda waxay tagtay Mandheera waxay kula shirtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya balaxaw maysan gudbin reer balaxaw wali wasiirka radmiyada Soomaaliya ilayhin maysan arag ever in their life waxaa la mudnaa inay wasaaradda inay u gudubto dadka ay soo booqato customka balaxaw iyo Mandheera marba waxaa la yiri waa la furaya waxaan moodaa dawladda marka inaysan pressure iyo awood inay saaran ilaa dhaqaalaha ay ka soo gali lahaayeen dadkana noloshooda kaaba laga sameyn lahaa dhalinyarada ay sheegayso shaqo la'aanta ana shaqo looga abuur lahaa marka waxaan dhihi karaa dawladda isku dayo tiro badan
oo markii xag ka soo gashay laga celiyay xagga markii ka soo gashay laga celiyay xagga markii ka soo gashay laga celiyay inaysan jirin baan aaminsanahay doorashada Axmed Damcaan iyo bugmadooda mar ay diraan la soo celiyay waxaan intaas ahayn ilaa hadda kama hayo maxaa sabab u ah in 7 sano kadib Axmed Madoobe joog arrinta jubbada dhexe ilaa hadda aan xal loo helin in la xoreeyay xitaa aan xal degmo laga koobo ni horta hal arrin inaan haddaan Soomaalinahay aan fahanaa muhiim ah al-shabaab waa Soomaali hal ahna lama rabo inaad weligaa taagnaatid hadda fiirsid businesskan dukaamadan isla ka shaqeeya waxaad arkaysaa dukaan maalin roog ahaa maalinka dambe dhar loo bedelaayo maalin dambe kaba loo bedelaayo mar boorso loo bedelaayo reason keenayaan waxay tahay businesska waa in migration uu samayn kara hadba meeshii boomina mar electronic baa haysa nimankan sinis Cabdullaahi Yuusuf iyo waxa la hala baabiyo xaqiiqana waxaan ku sheegayaa ciyaalka Cabdullaahi Yuusuf markii uu hala baabiyo dhashay baa hadda qori wato al-shabaab waxa marka loo baahan yahay hala baabiyo iyo hala dilo waxay dhiirigelin siinaysaa wiilka baadiye ku dhashay baadiye xagar ku dhashay oo aan weligii arag dawladda Soomaaliyeed oo 20 jirka markii la diyaaradaana duqeynaysa Mareykan baa iska leh madaxweynaha dalka Mareykan buu u shaqeeyaa ma wuxuu dhageysanayaa warka dawladdu ay sheegayso villa Soomaaliya ma wuxuu dhageysanayaa ninka duurka la jooga warkiisa marka dawladda waxa loo baahan yahay luqado kala duwan in ay ku hadasho si maamuladan maxaan ku raadinaa nimankan duurka jooga ruuxooda isbedel lagu sameeyo tusaale in la sameeyo wada hadal la furo oo kale لهذا هو هالبان صفرنا لما فر إن لا فرق وهذا البان قال إنه دليل وهذا الفرق وين قد لما جعبه وين اللي هذا مدرس from that period to that period وحلا جوجنا يدرون كده قيمة لجوده وحن جوجنا ورركه شرك وحكد عيان مله بلاي صدق شر لا أفر شر in that period وحن أمن سنة هاي إن أنت فصح اللي جرو ويحتاج نسشة كجران إن بقولك وكنتن أما كبدن ayaga oo soo haya ama dadkooda ku soo dhaxararay hatta in la heli lahaa intooda kalena xal loo heli lahaa waan aaminsana waayo qofka hadii awood wax ku goosanayo uu waayo aqligiisa soo laabanayo dawladda afisa u fiirisay hogaamiyayaal badan in waqti ah xukunkii farmaajo ilaa haddana wax rasmi marka laga soo tagay dhalinyaro yaryar oo mas'uuliyiintiisa sharci shabaab isuudiyo malaha ilaa hadda marka maysan ahayn shabaab inaysan xal u helin naftirkooda wada hadal oo dagaal u nimanka xalkooda ma arinta sayda ma aaminsani farmaajo uu sheegay wala sheegay public laga dhigay in wada hadal la furay shabaab maysan arinta anu wada hadal official oo leeyahay waa la furaya oo diidaan ma maqal cafiska of course yes waa jirtaa sida anu gahay xasan daahir baa soo dhibay oo cafis ku yimid oo masuur baa ku yimid wadaadka atmaha baa ku yimid adan coob hadda ugu dambeeyaa ku yimid saraakiil ciida ka zakariya ku yimid oo madaxna wasuuda ah sanu maleynahay saraakiil tiro badan oo xajir ku soo xarooday sheekh shariifka madaxweynaha noo noqday ruuxiisa ku yimid oo abiha al-shabaab aha marka meesha wax yaalo waxay tahay waan ku cafiyay soo xarow inta fahmi karta waxa ka badan aan wada hadalno kuma wada dagaal aan soo imaano aan wax isdhaafsano tabashayna sheegta inta markii la yiraahdo waxaan aaminsanahay anoon ogeyn in al-shabaab wada hadal ka yimid in ay aqbalayaan ayaga iyo dawladda laakiin waxaan aaminsanahay number tira badan oo dhulkana hadda ay haystaan ku dhashay intii ay hawsha ay wadeen maxaan ku raad dagaaladan ay wadeen in ay jiraan dad Soomaalida waxa la dhahaa 70% waa dhalinyaro haddii 70% dhalinyaro ay yihiin tusaale waxaad ka soo qaadaa gobolkan Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose iyo gada qayb kamid ah 70% dhalinyaradii ku nool ee duurka joogtay haddii la yiraahdo gaarigaana hoo amiirna waa tahay gobolkaana waad xukuntaa diyaaradda ku duqeynaysana gaalaha iskale tanna gaalaha iskale dawladuna gaalaha u shaqeysa haddii la yiraahdo weligiina una magaalo arag maxaad ka dhacin kartaa ma inaad dishay iyo nin hanti haysto oo magac iyo masab haysta akhrana janna kaaga horeysa la yiri uma maleynayo marka waa lagu cafiyay inuu ku imaan karo marka waxaan isleeyahay luuqadaha lagu la hadlayo nimanka in inta hadda ay yihiin laga ballaariyo baa nimankan ama ma garanaysaa wax lagu fahansiin karaa ama dadka intooda badan ay haysan laga kaxaysan karaa waa maxsantahay ugu dambeyntii adoo waxa ay qorbi joog in mudana dalka dibadda ugu maqnaa sidoo kale waxa jira qorbi joog tiro badan oo ka soo jeeda Soomaalida ama Jubbaland aan iminka diiradda saareen ku saabsan ama maxay doorka qorbi joogta Soomaaliyeed ee dib u dhiska Jubbaland ka saar niyo qorbi joogta harta waxaan dhihi karaa gobolada Soomaaliya isbedelo waaweyn baa ka jira aad bay horta kaalintan aad baan u gabnaan dhihi karaa ilmihii iyo dadkii meesha duruufta ku tagay waxay mudan yihiin dalkooda in dib loogu soo celiyo marka in Soomaaliya dhan carabka isku qabsata ma ahan gobolada bari iyo waqooyi iyo maxaan ku iraahdaa Sool iyo Sanaag iyo wax la taaban kara haysan oo dadkooda ay ku laabtaan
awdal iyo laakiin gobolladan Jubbaland waxaad moodaa in absolutely dadkoodu ay yihiin dad macnaha marka hore meeshan gobolkan gobol transition loogu talagalay moodaa inuu yahay macnaha sii soco marka kaalintoodii aad bay u gabeen waana kaalin bannaan waxaana dhihi lahaa imaada guriga ka dhista carruurta soo celiya inta inaan hadda kulley waxaas guda gelinna bal isku day inaad survey samaysaan hadda intii aan gada joogay oo kale hal nin baan ku arkay wax qurba jooga gobolka gado garbaare waxaan ku arkay gabdho meesha hotel kula kaliya ayaguna for business u jooga rabana dhulka noolayaan marka waxaan dhihi karaa Kismaayo iyo Xamar meel aan ahayn maba tagaan waxaan dhihi lahaa marka inay dhulka kusoo laabtaan oo yimaadaan hal cilado kalena waa jirtaa ilmaha qurbaha markay ku halaabaan cunugaaga waxaa rabtaa inaad celiso wadanka u celiso diinta iyo dhaqanka aad barto tusaale waxaad kasoo jeedaa Bu'aale waad ka baqaysaa Mareykan baa tam dhalashay Ingiriis haystaa meesha hooyada aabaha ku dhalan Bu'aale hay'adana waad ka kacday waad ka qaarartay inaad kan ilmaha ay keento waa isla same thing oo wax isbedel ma jiraan xagee kugu dhow waa leedahay aada Xamar waxa leedahay qaraxya ka jira waa orday cunugaaga waxa ka turtay Boorame ama waxa ka turtay meesha la dhaho Garowe saddex sanadka ama laba sano ugu horeyso cunugu environment-ka fahmayo waad celcelin kartaa waxaad dhihi kartaa meeshan Soomaaliya waaye diintan Islaam waaye dadkan walaalaha waaye cunugu marka uu environment-ka adabta gareeyo ba waxa leeyahay yaa tahay oo dhul ma lihidin miya imagine marka cunug teenager oo laga dhaadhiciyay wadankii loo soo celiyo oo wadankiisa ku xisaabtamay in la yiraahdo meeshan magaalada degantaadin kama lihidin waxyaabo marka damage ka keenayo xitaa qurba joogta qaarkood sababay ilmahooda dib inuu soo laawanayaan ba kamid tahay waxaan marka baraarujin lahaa qoys waliba meesha uu ka barakacay ha isku dayo sida ugu dhaqsaha badan oo ama guri ama hanti uga samaysan karo ama ganacsi ilmahiisana meesha ku dhaqan celinayo in ay noqdaan meel environment asaga dadkiisa iyo ummadiisu xoog ku leeyihiin ilaa iyagu ay maskax aan ka fahmaan qabyaaladu inay tahay cudur laakiin cunuga teenager markuu 6 bilood 2 bilood uu joogo markii baad ciid ah lagu ka qaad la yiraahdo wayna dhacdaa aad bay u dhacdaa arrintaasina waxay inta badan ku dhacdaa dad ka soo jeeda gobolada Jubbaland waxaan aad iyo aad u baraarujin lahaa in doorkooda ay qaataan aniguna koow aan ka ahay waxaan jeclaan lahaa in aan arko one day ayaga oo dhulkooda dib inta ugu soo laabtay kaalintooda qaatay barnaamijka soo gabagabeynayna maxaan ka tagnay oo aad darbi walahi waxaan ka tagnay horta oo ku dar lahayn ilaahay inaan barano mar walba oo ilaahay isku xirno dadkuna inay is cafiyaan waxa anaga naga dhaxeeyana waxa ka weyn maxaan ku radaa waxa dad kale naga dhaxeeya qofka Soomaaliya markuu qofka adduunka markuu muuqaalkaaga shakhsiyadaada arko oo ka helo oo cabaar sheekaystaan aad u sheegtay inaad Soomaali tahay dan wuxuu ku leeyahay dad badan oo noocaada Soomaali ku jira ha marka tiraadaan wuxuu ku leeyahay waa isu fahmi laadi waxaan jeclaan lahaa marka mucaamalaadka aan ummadda kale la wadaagno in anagana aan isla wadaagno oo dhaqankeenu uu noqono dhaqanka ma garanaysaa ugu leetay anagu aan iskula dhaqano si nabigu yiri khaliqna naas bi khuluqin hasan dabeecada ugu wanaagsan aan iskula dhaqano inaan is xurmeyno anaga oo Soomaalinimada aan ka tagin baan waxaan rabaa berrito markay Soomaaliya isu timaado gobol baa loo xisaabtami doonaa degdeg baa loo xisaabtami doonaa ninka Bu'aale ka yimid waxa ka dheerayn doona ninka Garowe ka yimid ninka Garbaare ka yimid waxa ka dheerayn doona ninka Laascaana ka yimid ninka ka yimid maxaan ku raraa Kismaayo waxa ka dheerayn doona ninka Hargeysa ka yimid waxaan marka loo baahan yahay in bulshadii dhulkan ka tagtay ee dhulkooda u soo laabato mas'uuliyadda ay qaataan taskariyan kaga bixin hagaag daawadayaal intaasi ayaanu kusoo afmeerayna kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Aafi oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed markaana ahaa qurba joog oo aan ka wareysanayna xaaladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland aad iyo aad baa mahadsantahay Maxamed sidoo kale Cabdi aad baa mahadsantahay barnaamijka xiga ku kulmi doona hadduu ay baqdaro waxaan kaga tagaynaa Soomaaliya ha noolaato